ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabanayaan oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaa la soo gaadhay wareeggii kama dambaysta ahaa ee tartanka adeega bulshada waxaa tartankan ku tartamayey 16 guruub oo koox kasta ay ka koobnayd 3 qof waxaanay ku tartamayeen wax u qabashada iyo taakulaynta bulshada sida caawinta qoysas danyar ah agoomaha derbi jiifka dadka baahiyaha gaarka leh nadaafadda dhirbeerista dayactirka wadooyinka ganacsatada yaryar iyo wacyigelinta xanuunka COVID-19 waxa ay soo mareen 3 wareeg wareegii koobaad waxaa ku tartamay 16 kooxood waxaana ka soo baxay 8 guruub 8daasi guruubna waxaa ka soo baxay 4 guruub waxaa caawa la taagan yahay wareegii ugu dambeeyey oo 4 kooxood oo ka kala socda jaamacadaha Beder Hargeysa Addis iyo New Generation ay ku tartamayaan hal mashruuc oo ah wacyigelinta COVID-19 waxaana caawa si weyn loo wada sugayaa kooxda guuleysan doonta qabyadu noloshay ka qaybtahayo qabyadu noloshay ka qaybtahayo waayahay daawadayaasha iyo tartamayaasha waxaan ku soo dhaweynaynaa guntiga gabagabadii barnaamijkan muddada soo socday afartiina group ee finalka ku soo baxay caawa sidii caadada ahayd labadii su'aalood ee isku midka ah ayaan weydiin doonaa labadaas su'aalood ta koobaad ay tahay maxaad isleedihiin haddii aad guulaysataan way idinku saacidaysaa inaad guulaysataan ood kaga badin kartaan tartamayaasha kale su-aasha ku lamaanan ee la socotaana waxaa weeye guusha kuley lamaad ballamin haddii caawa lagaa guulaysto gabagabadii laga hormaro maxaad isleedahay darteed ayaa lagaga guulaystay waxaan afeef sii dhiganayaa oon araar sii dhiganayaa inta badan waxaa laga hortagaa in la idhahdo waxaas darteed baa layga guulaystay saan xalayba tilmaamaynay waxaa dhici karta adoon ka warqabin meelaha aad ku liidato darteed inaanay kuu muuqan wax lagaga guulaysan karo marka iyadoona meesha isdifaacyadahayn tartamayaasha kale iyo adigaba aad si fiican isku qiimeynaysaan aad tiimkiina iyo groupkiina aad si gaara u qiimeynaysaan waxaad isleedahay aad ku guulaysateen iyo cid dhamaystiran ma jirtee waxaad isleedahay waa lagaga guulaysan karaa aad iyo aad u kooban ayaan siinaynaa groupkiiba waxaan siinaynaa 1 daqiiqo oo intaa noogu soo xiri karo waxaan ku soo dhaweynayaa marka koobaad groupka daryeele ee ka socda Addis Ababa Medical University haddaan su-aasha koowaad ka horeeyo waxaan ku guulaysan karnaa waxaan isticmaalay raadiyo Hargeysa muddo 2 cisha anagoo kasii deynay war oo ay dhageysteen dad ku dhow 1 million people oo daafaha ku nool raadiyo Hargeysa ka shaqeyso su-aasha labaad aan ku guulaysan karno waxa kamid ah wacyigelinta aanu sameynay waxaanu gaarsiinay 6 gobolba anagoo guryaha badanka danyartu ku noolyihiin ama xaafadaha barakacaasha danyartu ee aan geli jirin baabuurta wacyigelinta wada aan guri kasta baabuur geynay oo aan wacyigelin ka bilownay 3 waxaan ku guulaysan karnaa inaanu isticmaalay TV-yada ugu waaweyn Soomaalida sida Universal TV, Home Cable TV iyo True Cable TV kaasoo soo daayay wararkoodii maalinlaha dadkuna ay si dadkan isticmaalin social media kale wararka uga daawadeen intaas way 3 qodob aan soo ku guulaysan kartaan su-aasha intii kale horta aniga secret malin waxaad ku guulaysan kartaan baa jira nasiib mooyaane qadarta aliya nasiib mooyaane waxba ku guulaysan kartaan ismalina nooga mika ma waxaan sheega waa eeg waan in laga guulaysto ma ogolid biya
waxaa lagu yidhi mayana waan ogolahay laakiin imka hay meelaad leedahay waad u liidataan cid perfecti ma jirto dee wada Okay. dhammaystiran Okay. xagee baad dhinaca anagu maad aragtay markii aan filimka matelno kaleeto anaga matelnay laga yaabaa inay yacni ka qurux badnaanayna jilayaal aan isticmaalno okay okay way waa mahadsantihiin qaabka loo fiiriya marka lagu leeyahay maxaa lagaga guulaysan karaa tusaale ahaan waxaad maskaxda gelisaa haddii waqti dheeraad haysan lahayd waxaad samayn lahayd oo kale kusii anfici lahaa talow ama aad ka gaabisay ama aad ku qaldantay qof dhammaystiran ma jiro la socdaada ha ma aha yacni ma liidatid ujeeddadu saas maahan waa mahadsantihiin waa idinka dhan tahay groupkii ku xigay bulshakaab hargeysa university ka socday isla labadii su-aalood goobadan islana waad ku guulaysan kartaan waxa weeye bulshada inaan doc kasta ka eegnay hadday tahay dadka baahiyaha gaarkaa leh autismka oo kale aan soo sheegnay dadka dhagoolayaasha dadka indhoolayaasha maxaa la yidhahday iyo danyarta sidoo kale waxaanu samaynay broadcasting oo maxaa la yidhahday inta badan wax iska cusub ah inaanu isticmaalnay wasaaradaha pageska looga baahan yahay xogta in laga helo iminka anigu haddaan u baahno xog inaan helo wasaaradda caafimaadkan toosu tegaya marka waxay meelihii looga baahnaa xogta in laga helo inaan u gudbinay sidoo kale maqaal inaanu gudbinay inaan door to door campaign samaynay oo dadkii aan looba geli jirin aan ugu galnay sidoo kale aan adeegna u fulino oo ah inaan maski siino iyo inaan maxaa la yidhaha saabuun siino sidoo kale inaanu samaynay hab strategy aan 6 degmo ku gaadhayno oo ah inaanu degmo kasta 2 qof oo ka soo xulanay oo degmooyinka gudis siinay qaybtii kale su'aasha soo kooba TV-yada la isticmaalay ma wax kale shalay lama guulaysan karaa slide groupka kalkaal new generation isla labadii su'aalood haddaan ka horeeyo anu maxay ahaatoy waxaan ku guulaysan karno waxyaabahan ku guulaysan karno waxaa ka mid a kow inaanu focuska saarnay dadka aan wacyigelinta social mediahu gaadhin oo aanu isnidhi social media dadka aan isticmaalin waa dadka danyarka ah aanu toos u gaadhnay wacyigelinta markaanu sameynaynayna ma af un maanaan sheegayn ee practically baan isticmaalaynay oo waxaanu gaadhaynay dadka annagoo xidhan safetygii la isticmaalay maskiska iyo galofisada isla markaana dadka waanu siinaynaanu maxay ahaatoy toos u tusanay inay xidhaan ay tijaabiyaan inaan wax problem ay keeni karin waxyaabaha kale aanu sameynay waxaa ka mid ah annagu kamaanaan fikrinun inta indhaha qabta ama inta social media isticmaasha laakiin waxaanu ka fikrinay dadka dhagaha le oo kale barnaamijka aanu fidiyoda aanu sii su'aasha qaybtii dambe su-aasha qaybtaa dambena kolley halka ugu badan ee aanan xoogga saarin waxaan malayaa inay noqon doonto fuyuuska in lagaga guulaysto oo waxaanu xoogga saaraynay dadka aanay gaadhin social media aanu aada u gaadhin markaa taas umaan manaysaa mahadsantihiin waayo groupka rajo ee Badar University ka socda isla labadii su'aalood waxaan odhan karaa runtii nuqaad quwa way ii tahay horta ilaahay baa kaamila waxaan kala dhinmin ma jirto waqtiga oo igu yaraa aawadeed wax badan waan qaban kari lahaa baan huba intaan iminka keenay inka badanna waan keeni lahaa marka waxaan number 1 horta inaan dadkii maxaan ku rahdaye dhex galay oon tusiyey iyagoo isle waxaan haddaad isticmaasho xanuunkiiba qofkani sida aan ka soo dhaadhiciyey soo dhadhaweeyey ay dadkii naga dalbadeen mar kale ma noo keeni karta oo aan caadi u dhex galay bulshadii maxaan ku rahdaye dhinacyo badanna inaan wax ka eegay intii maxaan ku rahdayay u badnayd waxaan aaminsanahay fideoga aan duubay oo anagu aan shakhsiyan anagu aan u duubnay inuu dhagooluhuna fahmi karo maxaan ku rahdayay maadaama ishaaraadkan isticmaalaynay anagoon ugu talagelin dhagoola fahmaan in dhammaan qaybaha bulshada oo dhan ay fahmi karaan fideoga aan duubnay qaybta labaad oo aan isleeyahay waxaan leeyahay aan isleen kale nuqaad quwa ay lagaaga badin karaa waxay tahay meelo badan oo kale oonan wada gaarin sida idaacaddii TV-yadii waayahay aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaan idin odhan lahaa gabagabadii baynu joognaa habeenkii ugu dambeeyey ee finalka lagu dhawaaqi doono cidda ugu dambeynta ku guulaysatay waxaan isleeyahay afartiinan tiim dhammaantiin waad guulaysateen mar haddaad finalkii joogtaan caawa habeenno horeod soo marteen oo kuwa idinla socda ay hareen idinku aad soo gudubteen waa jirtay marka horeba inaad ku soo baxdaan inaad ka qayb gashaan tartankan ayaa guul ahayd ood ka fakartaan wax bulshadeenna horumarkeeda ka shaqaynaya sanadkii hore tartanku shaksi buu ahaa ganacsi qofka gaarkii u caawinaya ayay ahayd maanta laakiin waxaad ka fikiraysaan seed bulshada u tari kartaan wax seed aad u caawin kartaan marka inaad soo gashaan guusha koobaad bay ahayd inaad ka soo hadhaan grubyo fara badan ood finalkii timaadaana guusha labaadeed oo reer aad hesheen weeyi ta ugu dambaysana kolley waxaan ku qasbannahay guddi ahaan inaan
hal tiim soo saarno haddaan ikhtiyaar kale inay afartiina wadan soo saari lahayn laakiin dabeecada iyo sunnada ay ka mid tahay inay hal group ugu dambeynta ay soo haraan aad iyo aad baad mahadsantihiin okay bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaynu joognaa guntii iyo gebagabadii tartanka adeega bulshada runtii bishaaba soo wadnay runtii waan idinkaga mahadnaqayaa dhammaan ka qaybgalayaasha ardaydii jaamacadaha dalka ka socday ee barnaamijkan ka soo qayb galay oo anigu aan aaminsanay dhammaantood inay guulaysteen haba yaraatee ma jiro cid laga guulaysatay sababtoo hawshii aad qabateen waxaan anigu la socday baaxadda ay lahayd iyo culayska ay lahayd waxaan ogaa runtii habeen iyo dhararba inaad u soo jeedeen inaad fulisaan howlihii laydiin diray anigoo og runtii howlaha laydiin diray idinkoon ogeyn oo khabar maafisha ayaan idiin dhiibaya urba ka haynin oo qaarkood isleeyihin mala wax fudud baa lagu diraya ayaa waxaa aan idiin diraya howlaha ugu culus ee qaarkood ay qaadan karaan wiig ay qaadan karaan ayaan idiin diraya wax kale laydinkuma direen kow horta inaad ku tababarataan dadki inaad wax u qabataan idinku inaad isdirtaan idinkoo volunteerisa oon waxba qaadanayn bal bulshadeenii baahneed ee dhibaataysneed ama u baahneed adeega bulshada inaad wax u qabataan runtii waxaan qabaa inaad hawl aad u culus ka soo baxdeen dhammaantiin aad guulaysateen wax wanaagsan aad qabateen hadda wixii ka dambeeya dabcan waxa weeyaan waxaa lagu dhawaaqi doonaa muxua ciddii ku guulaysatay laakiinse dhammaantiin waad guulaysateen waana runtii idiin mahadnaqaynaa jaamacaadkii aad ka socoteenna runtii si wanaagsan oo qiimo badan baad dhammaantiin u matasheen marka caawana waxaa lagu dhawaaqi doonaa go-aankii ugu dambeeyey oo ah ciddii ku guulaysatay barnaamijka aad baan runtii idiin soo dhoweynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal ku soo dhowaada habeenkii ugu dambeeyey ee taxanihii tartanka adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha barnaamijkii uu maalgelinayay bangiga Premier Bank ee sanadkan 2020ka aad sida joogtada ula socoteen bisha Ramadaan waxaa habeenkan finalka iskugu soo baxay 4 jaamacadood oo kala ah Addis Ababa Medical University, Hargeysa University, New Generation University iyo Badar University kadib markii guddida kala saaraysa ay waqti fara badan ku bixiyeen qiimeyntii ay awalba sameynayeen waxaan xagan ka iclaaminaynaa kooxda ku guulaysatay tartanka adeega bulshada ardayda jaamacadaha ee 2020ka in ay tahay kooxda Bulshakaab ee ka socota jaamacadda Hargeysa أول شيء الحمد لله هذا فاينل كيسو قارني قول درادي قوش ومر بقولت هاي الحمد لله وأنا كفر حسنين بالشدة إذا أنا وحترناي سو كلتون كحنا هاي عاوين نقول در هاي السنة لكن الحمد لله إن شاء الله مركنا نقول يسنتونا وما انتهى قول دريسان مرنبا صوبتو أي تهاي وحيابا ضمن قبلني بالشدة إذا أيانو دحقلني وحن أوجاني وحيابا فربضنا وأنا نكوجين duruufo fara badan oo aanan islahayn bulshada way taallaa waanu dhex galnay in bulsho wax u qabanna oon qof kala dareenno oon nafteeda ahayn baa aanu ogaanay runtii khibrad weyn baa meesha nooga kordhay juhdiga aanu bixinayna tii adduunyaha haddii la waayo tii aakhira mar walba la helayaa kayd noo ah oon ku faraxsannahay alxamdulillahi rabbil caalamiin baanu leenahay mar kasta annagoo ah tiimkii kalkaal tiim ee ka soconay jaamacadda New Generation inkastaanu maalmo badan soo guulaysan inaan xaggan joognay caawa haddii aanu hadhnay كله أقبلنا نقول دردا إلى هنا أكو هرنا. أنا جاه تيم بالشكاب كنا سعودة جامعة درجة كلية هذه قبل شدة وترتمية ترتن كهذه قبل شدة ومرجلي بريمير بانك وحنكون فرحسن عاوين نقول السنة إذا دال فربضان يشق فربضان شرتي حتى نوح عن عاوكو إلاوينا إن الله بدي شير بقول السنة أو محل هذا إني بشدة لا شقيانة وأقول ترتن كي لقول السنة وأقول مركات بهم فرحسن عيمانته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahaa guddigii loo xil saaray inay kala saaraan tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha waddanka waxaanu kala saaraynay oo tartamayay 16 kooxood oo ka socday jaamacadaha waddanka marka lagu dhiibo hawl noocaas oo kala ah oo garsoorana dee waxay doonaysaa dadaal iyo sida Ilaahay kugu og yahay inaad u qiimeysid go-aanka naga soo baxay caawa ee gudoomiyuhu ku dhawaaqayna waa sidii Ilaahay nagu ogaa annagoo dhinacayaga iyo wax walba u tuuranayna
waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhallinyaradii reer somalilan ee jaamacadaha ka socday ee ku tartamay adeega bulshada ee wakhtiga cidhiidhka la siiyey dhaqaale lacagta kooban loo dhiibay ee la yidhi haddana hawl aad iyo aad u culus soo qabta dhammaan waan hambalyeynayaa hawshii ay qabteen dhammaanna waxaan leeyahay way wada guulaysteen oo waad wada guulaysateen laakiin waa tartanoo dee marba un cidunbaa soo baxaysa waxaan leeyahay cidda soo baxdayna waa u wada hambalyeynaynaa dhammaantiinna waa idin wada bogaadinaynaa waxaan kaloo bogaadinayaa Premier Bank oo runtii hawl samafal oo aad iyo aad u wanaagsan oo bulshadana wax taraysa dhallinyaradana dhiiri gelinaysa dee qabtay waxaan kaloo aad isagana u bogaadinayaa Professor Mubarak oo isna hawshan hogaaminayay oo si xilkasnimo ah runtii uga soo baxay waxaan kaloo bogaadinayaa guddoomiyihii isna guddiga iyaga hagayay Ismaaciil oo isna si habsami ah oo cadaaladi ku jirto hawshan noogu jihaynayay inaanu siday tahay u qabanno xubnaha kale guddiga ilaaha oo ay ka mid tahay gabadha la yidhaahdo Xamde iyo Cabdirashiid iyagana waan wada bogaadinayaa dee aad iyo aad baan dadka reer Somaliland u bogaadinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad halkan ugu mahadnaqayaa dadkii ka qayb qaatay kala duwanaa barnaamijkan lagu tartamayay adeega bulshada runtii wuxuu ahaa adeeg xiiso leh oo anigu welibana si gaar ah aan wax uga baranayay bulshada daawan doonta iyo dhallinyaraduna ay wax ka badan doonaan waqti kooban in dhalinyaro la siiyo lacag kooban loo dhiibo hawl weynna loo xilsaaro welibana meelo bulshadeena aad goldaloolooyin ay uga lahayd marka dhalinyaradu wax badan bay ka baran doonaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii jaamacadda Badar iyo Mubaarak oo maaragtay hal abuurkan lahaa bangiga Premier Bank oo isaguna maalgeliyay isaguna wuxuu leeyahay in la bogaadiyo runtii dhammaan tartamayaashii ka qayb qaatayna aad baan ugu hambalyeynaya iyo kooxda hadda ku guuleysatay tartankan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf al-anbiyaa wal-mursaliin run ahaantii waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay moralkaygu aad maaragtay u faraxsan yahay sidii quruxda badnayd aan usoo gabagabaynay ama usoo dhammaaday barnaamijkii dhalinyaradu iyo ardada jaamacadahu ay ku tartamayeen run ahaantii barnaamij wuxuu ahaa very challenged buu ahaa competitionku aad buu u sarreeyey annaguna guddi ahaan haddaanu guddi nahay run ahaantii waxaanu ku dadaalay in sidaa ugu cadaaladsan aanu arrinkan usoo samayno waanaan ku guulaysanay ilaahayna uu nagu guuleeyey waxa kaloo aan la iloobi karin annaga laftaygu casharaanu ka baranay cashare aad u fara badan baanu ka baranay waddanka inay joogaan dhalinyaro habla iyo inamalo ah oo runtii wax jiheeyoon u baahan laakiin hal abuur leh ayaa meesha ka soo baxay waa arrin lagu farxo weeye waxaan halkan runtii aan aad iyo aad uga mahad celinayaa jaamacadda Badar oo arrinkan soo qabanqaabisay oo uu hormood u yahay Professor Mubarak Ibrahim R iyo bangiga Premier Bank oo runtii isaguna maalgelinta lahaa oo isna ay tahay inay kaga daydaan shirkadaha iyo kombaniyada kale waxaan runtii aadaan meesha aanu ka wada shaqaynaynay oonu guddigaas ku ahayn dad aad u akhyaar ah oo guddoomiyaha Ismaaciil oo runtii si fiican noo geergareynayay wasiirka hore cadaaladda Axmed Casoowe oo isna guddiga ka mid ahaa inanta Xamda oo iyadana guddiga ka mid ahayd dad akhyaar runtii aad moodid in loo soo xulay oo selection fiican ay sameeyeen qoladan maaragtay naga dhigtay maaragtay guddiga runtii dad akhyaaray ahaayeen cadaaladna way ku dadaaleen aragtida iyo rayiga intoonu aruurinayaan sida ugu saxsan qof walba uu wixii u arko cadaaladdu ay tahay run ahaantii uu sameynayay cidna looma eexan lagana marka la jeclayn saan horeba u sheegnay waxa weeyaan competitionku iyo tartanku wuu adkaa dhammaan ardaydaasna arday soo dadaalay bay ahaayeen bulshadana waxay u yihiin muraayad in lagu daydo weeyaan aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim waxaa ilaahay mahadiya farxad aad iyo aad u weyna ah in caawa noo soo gabagabooday tartankii adeega bulshada ee bishan Ramadaan socday waxaan u mahad celinaynaa oo si aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa saaxiibkay Mubarak R oo fikirkan cusub keenay runtii wax sahlan ma aha in fikir cusub la keeno in la hergeliyo dadaalkeedii u baahan tahay waliba lamaynaan qabsan mananaan arag arrimo bulsho in lagu tartamo sidoo kale waxaa iyadna waxaa ammaan mudan bangiga Premier Bank oo intaas sanadkii hore iyo sanadkanba
la garab taagan barnaamijkan hirgelidiisa run ahaantii waxaa aad iyo aad ii soo jiitay afkaarta kala duwan ee anfacaysa bulshada kooga tabaaleysan iyo kooga kaleba ee lagu tartamayay guddi ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay una mahad celinayaa tiimkii aan wada shaqaynaynay ee aad iyo aad ka cuslaa khubarada ahaa guddida kala saaraysa aan wada ahayn sanadkan waxaan gabagabadii leeyahay afkaarta ku dhex jirtay barnaamijyada lagu tartamayay waxaan aaminsanahay inaanay ku koobnaan doonin keliya tartanka laakiin ay hagi doonto ay tusaaleyn doonto dhalinyar fara badan oo mar kasta ku hamiya wixii ay bulshadooda u qaban lahaayeen waxaan rajaynayaa inay tusaaleyn doonto waxqabad fara badan oo soo socda sidoo kale waxaan rajaynayaa in dhalinyartii xaggan ku tartantay ay mustaqbalka la imaan doonaan ayaguna afkaar saas oo kale oo qurux badan waa mahadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum raxmatullah ku soo dhowow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabaneen oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier